iyadoo toddobaadkii la soo dhaafay magaalada Burco gaar ahaan deegaanka Wadhan oo ka tirsan gobolka Togdheer lagu arkay in yaro 4 jir ah oo lagu eedeeyay inuu qashay isla mar ahaantaana dhiiga ka shaqay nin dhalashahaan ka soo jeeda wadanka Itoobiya gaar ahaan qowmiyadda Oromada dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco maalmihii ugu dambeeyay si weyn u hadalhayay dhacdadaasi dhawaan ka dhacday deegaanka Wadhan ayaa waxa habeenkii xalay ahaa magaalada Burco ka dhacday dhacdo la yaab leh isla markaasina ama ka ku riday dadweynaha ku dhaqan gobolka Togdheer kadib markii salaadii hore lagu waabariistay xaafadda Maxamed Cali neef xoolaay oo sheegeen dadka xaafadaasi inuu cunay dhiigana ka shaqay nin dalqal ahi sida ay tilmaameen dadweynaha ku dhaqan xaafadaasi neefkan xoolaay habeenkii xalay dhiiga lagaga shaqay gudaha magaalada Burco ayaa waxa ka hadlay qaar ka tirsan hooyooyinka degan xaafadaasi markaas ay dhahan war qof ma ay dakeeriyo wana xoolaay sida markay ka jarayma dalaalka markii aan ka eegay aniguna soo tukanay ninkii baa cunay dhiigba ma neef ka maxan ka eegnay ninkii baa cunay mudawada ninkii aan ma garanayay hadda dabdaan deefkan ma in bahal cunay mise in intii lagu gooyay soo gaarka indii wada jeeniga halkaas laga jaro aadi la harin daraga ma lahayd وهذه سواد اللي سوبري نف وهرجنا يالله إذا لقى تران أول ما نقول ماشى أنتي لقى تران منها عاد كي لقى تران يلا ولا بالساهل كيف كيال مرد كم أولين اللفون بس يسوون عندك كريم عندك كريم سيو تلا كريم لا بس ما هو يسوون حما كتير يرين لا في يلا لكن هو صاروا دعديها taliye ku xigeenka laanta socdaalka gobolka Togdheer Farxaan Ismaaciil Cali oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay ku daba jiraan dhacdooyinka ugubka ku ah gobolka Togdheer ee soo noqnoqday taliye xigeenka laanta socdaalka gobolka Togdheer Burco waxaanu halkan u nimi xaalad yar oo ka dhacday xalayta habeennimadii jibciintii la hurday neef xoolo ah oo sidii isagoo sidii uu Ilaahay u sameeyay u nool inta la gooyay garabka la jaray waad arki karto in ama ay noo sheegay dadkii looga soo reeyay in lagu gooyay midi iyadoo meel kale la taataaban dabeetana markii midii la gooyay halka laga dooray calooshiisii wadnihii iyo beerkii markii aanu qiyaas ka qaadanayna aanu aragnay in qof farsamo yaqaan bahal aanu ahayn qof farsamo yaqaan wax farsameynay wax dhiigina aanay ka qubanin waxa weeyaan waxa kale oo eeriyada in beesheeda oo in la eega leh neefkan ma jirto rifrif kale oo ka muuqda iyo wax kale oo ka muuqda waxa weey waa la gooyay inta garabka la gooyay ayaa halkaas guriga iyo beerka ku beegan wadnahana la dalooliyo sidii wax laga baxay oo kale waxba ka dhax muuqan wixii Ilaahay ku abuuray wadniyo beerkii oo kale aan ku jirin waxa weeyaan hadaanu nahay laanta socdaalka gobolka Togdheer iyo hadaanu nahay Blaiska iyadoo ay waxyaabo hore gobolka dhacayna ay jiraan tanna ay nagu abuurayso shaki kale oo soo kordhaya ay tahay kana waanu ka daba tagi doonaa bal xaalad siday tahay iyo waa baaris baan ku samayn doonaa bal wixii Ilaahay noo budburiyay iyo wixii dad kale noo sheegaba waxa weeyaan dadkana waxaan leeyahay bal waxyaabaha noocaas aragteen Blaiska magaalada ku deganow markiiba meelaha abdigiyo dawladda iyo la soo socodsiiya caruurta rafiidka ka xaray ugu dambeyntiina falalka noocan oo kale ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay ku soo badanayay gobolka Togdheer waxaana bulshada ku dhaqan magaalada Burco si weyn u hadalhayeen sababta ay xukuumadda Soomaaliland dalka uga mustaafirin weyday dadka Itoobiyaanka ay aanu dhalan dalkani waa Barwaaqo Aadan Maxmed telefishinka caalamiga ee Somali Cable magaalada Burco.